الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لها شرفت له وحان idinku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sidaan wada ognahay dadku maanta waxay ka wada cabsanayaan xanuunka coronavirus waa xanuunka ku faafay guud ahaan caalamka dadkuna si saa'id ah ayay uga cabsanayaan laakiin aan waxaan idin leeyahay isla markaana aan idin xasuusinayaan qofka ku sugnaada dariiqa saxda ah ee ilaahay inoo jideeyay iyo sunnadii nabiga sallallahu alayhi wasallam ma soo wajahayso umana baqayo nafahaantiisa waxaan jeclaystay inaan idin xasuusiyo حديث قيمة بدن أو النبي يقول لي هي صلى الله عليه وسلم قفك معلم والباخرستا وجما بقى ينفهانتي سأينه كدع حنون وحاو كل هي النبي صلى الله عليه وسلم حديث كاسي اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجدام ومن سيء الأقسام ولا الدعاء دفض آدنا ويرتهي وأن حفظي كريسة هنكو علي الدعاء داسي وحي لا دهي اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجدام ومن سيء الأقسام ومن سيء الأقسام أيا وحي كردغانتهي قودهان حنونة حنحن أردن إلهي وأدق أيان كامغانقاليا kaga magan gal ducadan Allah subhanahu wa ta'ala kana yeel mid aad aaminsan tahay inuu ilaahay kugu caafinayo kadib waxa korkaaga saaran inaad ducadan bartid cid wali oo mas'uul ka tihid qaraabadaada waalidkaaga aroortaada iyo dhammaan bulshada muslimiinta ah oo dhan waxaan ilaahay weydiisanaynaa inuu ilaahay xifdiyo qof wali oo muslim ah dunida meeshu dooniba ha kaga sugnaadee haddaba walaal haddii aad ka heshay gaarsii walaalahaaga kale siina sheer garee si uu gaadho dhammaan muslimiinta ku dhaqan caalamka